maalmahan waxa soo baxaya siyaasiyiin iska dhigayo inay dagaalkii qayb ka yihiin oo ay dhiirigelinayaan laakiin markaad hadalkoodii dhageysato aad dareemaysid inay tashwiish iyo waxaan loo joogin ku furayaan xureynta iyo dadka furmaha dagaalka ku jira ee khawaarij la dagaalamaya oo furuntii kula jiro waayo marka siyaasi waddanka ka maqan oo waddanka banaankiisa jooga intuu soo hadlo isagoo iska dhigaya inuu bogaadinayo dagaalkii haddana dadkii rumuusta u ahaa dagaalka iyo xureynta uu rabo inuu wax ka sheego ama madaxweynihii iyo ciidamadii saraakiishii uu rabo madaxa inuu isu geliyo madaxweynihii iyo wasiiradiisa oo ka wada shaqaynayo dagaalkii uu rabo inuu madaxa isu geliyo waxaad dareemaysaa inaanay dhiirigelin ka ahayn ee ay rabaan inay isku diraan dagaalkaasina laga niyad jabo furmaha laga soo dareero inay dhiirigelin baad dareemaysaa waayo waxaa arkaysaa siyaasi Nairobi ka soo hadlayo waliba malfashiyada iyo meelaha lagu qaylayo ka soo hadlayo oo haddana sheegayo inuu dhiirigelinayo dagaalka oo dhinac kalena madaxweynihii iyo in allaale intii markaasi dagaalka garab taagneed oo iska horkeenayay baad arkaysaa warbaahinta sharafta leh waan idin mahadcelinayaa sida quruxda badan mar waliba aad ugu taagan tihiin golaha shacabka iyo ka hadalka horumarinta deegaanada waxaan rabaa inaan laba kelmadood halkan ka dhaho oo aan ku bogaadinayo horumarka laga gaaray xureynta iyo la dagaalanka khawaarijta runtii waxaanu joognaa waqtigii ugu mudnaa oo garab istaag haddaanu nahay xildhibaanada iyo haddii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo dhammaan siyaasiyiinta la muujin lahaa waayo waxaanu haysanaa dhowr shay oo adkeyd in la helo waxaanu haysanaa madaxweynihii ugu habboonaa oo runtii la dagaalami lahaa dagaalka oo dagaalka ka go'an baanu haysanaa sidoo kale waxaa la hayaa baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo u taagan in iyadoo dagaalkii uu socdo dhanna dagaalka ay kaga jiraan oo furumihii iyo ciidamadii dhiirigeliyaan sidoo kalena shuruucdii iyo wixii loo baahnaa dagaalka lagu geli lahaana ay u shaqeeyaan oo u taagan marka waxaan rabaa in aan kelmadeydu ku biiriyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan siyaasiyiinta wax loo baahan yahay in qof waliba kaalintiisa iyo halka uu kaga aadan yahay dagaalka uu kaga jiro uu qayb ka ahaado maalmahan waxa soo baxaya siyaasiyiin iska dhigayo inay dagaalkii qayb ka yihiin oo ay dhiirigelinayaan laakiin markaad hadalkoodii dhageysato aad dareemaysid inay tashwiish iyo waxaan loo joogin ku furayaan xureynta iyo dadka furmaha dagaalka ku jira ee khawaarij la dagaalamaya oo furuntii kula jiro waayo marka siyaasi waddanka ka maqan oo waddanka banaankiisa jooga intuu soo hadlo isagoo iska dhigaya inuu bogaadinayo dagaalkii haddana dadkii rumuusta u ahaa dagaalka iyo xureynta uu rabo inuu wax ka sheego ama madaxweynihii iyo ciidamadii saraakiishii uu rabo madaxa inuu isu geliyo madaxweynihii iyo wasiiradiisa oo ka wada shaqaynayo dagaalkii uu rabo inuu madaxa isu geliyo waxaad dareemaysaa inaanay dhiirigelin ka ahayn ee ay rabaan inay isku diraan dagaalkaasina laga niyad jabo furmaha laga soo dareero inay dhiirigelin baad dareemaysaa waayo waxaa arkaysaa siyaasi Nairobi ka soo hadlayo waliba malfashiyada iyo meelaha lagu qaylayo ka soo hadlayo oo haddana sheegayo inuu dhiirigelinayo dagaalka oo dhinac kalena madaxweynihii iyo in allaale intii markaasi dagaalka garab taagneed oo iska horkeenayay baad arkaysaa aad baan runtii uga xumahay waxaan rabaa siyaasiga banaanka ka soo hadlaya inuu dalku yimaado annaga golaha shacabka xildhibaanada haddaanu nahay waxaanu samaynaynaa qayb naga midana waxay joogaan furuntii bay joogaan qaybana waxay joogaan golihii shacabka oo shuruucdii loo baahnaa ee dagaalka lagu galay bay ka shaqaynayaan haddana baarlamaanka markuu noo xidhmo waxaan diyaar u nahay inaan isu diyaar garowno gaar ahaan xildhibaanada deegaan doorashada laga soo doortay Koonfur Galbeed iyo Jubbaland phase 2ga waxay diyaar u yihiin markuu sida baarlamaanku u xidhmo inaan diyaar garowgi galno oo aan deegaanadii tagno shacabka diyaarino la dagaalanka khawaarijta dhiirigelino hadda waxaan leeyahay walaalayaal waxay u baahan tahay xilligan oo kale isku duubni ay u baahan tahay waxay u baahan tahay isku dhan in laga soo jeesto haday tahay warbaahin haday tahay xildhibaaniga golaha shacab haday tahay laanta fulinta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha hadii ay tahay shacabka Soomaaliyeedba qof waliba dagaalkaas inuu ka shaqeyn u baahannahay aad ma sabto waxaan rabaa su'aal arin adiga ka hadashay oo tiri dad maraakiibta lagu qayla ka soo hadlaya ayaa dagaalka faragelin ku hayla waa kuwa shakhsiyaadka dawladda Soomaaliyeed maanta inta ogeed oo adiga og tahay oo dagaalka xayal daacin waxay ila tahay dawladda Soomaaliyeedna way og tahay oo madaxweynaha meel badan kaga hadlay annagana waanu ognahay shacabka Soomaaliyeedna way fiirsanayaan nin aan goob dagaal taagnayn oo goobtii dagaalka aan joogin oo meel kale ka soo hadlayo oo haddana tashwiish iyo waxaan loo joogin ka hadlayo de waxa dareemaysaa inuu dagaalkaas inuu fashilmo uu ka shaqeynayo tusaale wasiirka gaashaandhigga laga hadlay
annaga waxaanu nahay xildhibaanadii wasiirka gaashaandhigga matalayay oo madaxweynaha isaga u doortay wasaaradda gaashaandhigga inuu u dhiibto isagaana naga codsaday oo golaha shacabka hor keenay annagana waan u ansixinay waxaa la yidhi nin gurigiisa kaa sooray rag dheh nin guri dadow kaa sooreen waxaa la yidhi rag karoon dheh ninkaasi waxay ahayd wuxuu mas-uulka ahaa bolosiga wasaaradda inuu wasaaradda dhex fadhiisto oo fan u raadiyo oo civilian way wasaaraddu oo ka shaqeeyay ahayd intuu intaa ka shaqeeyey oo ciidamada ugu badan maanta ay tahay wasaaradda gaashaandhiggu iyaga ay keeneen oo tababar hadday tahay hadday fan tahayba wasaaradda gaashaandhigga iyada hormuud ka tahay buu haddana wuxuu raaciyey weliba inuu tuutihiis intuu gasho furuntii hor tago oo dagaalkii dhiirigeliyo oo furumihii dagaalka ciidankeennii askarteennii waxay ku sugnaayeen noloshii uu qayb kala noqdo waxay cuneen la cuno meeshay seexanayeen la seexdo marka ma ninka furuntaasi ku jiro oo suurtagal tahay inuu ku dhinto ayaa dagaalka aanu dhabka ahayn mise ka soo hadlay malfishadan dhabka ahayn